ku fikir inaad gurigaaga adigoo jooga dhaqaalaad samaysan karto ku fikir gurigaaga inaad adigoo jooga dad shaqo abuur u samayn karto ku fikir adigu inaad samayn karto adduunyadan bedeli karto ku fikir waanad samayn kartaa way dadka kugu wareegsanay 90% mar raba inaad talaabo hore aad qaadid waxay doonayaan halkaa aad joogto lagugu bartay inaad taagnaato shaarkaaga inuu isbedelo lama rabo dharkaaga inuu isbedelo lama rabo muuqaalkaaga inuu isbedelo lama rabo fikirkaaga inuu isbedelo lama rabo aragtidaada inay isbedesho lama rabo halkaasaa la rabaa inay nolosha kugu dhamaato السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فابل سورة بالكستا تشوفتان مركزتا قور كستا قوب كستا كسوغنتين حالك لك ورما أنا قد نكي الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد إلهي ونوني معي ما أنت من ونكسيهين بدي كده واحد يقبر سبحانه وتعالى ستاسي سيكا ونكسن وبرامج كأني يرجل نفتا دا يرجل ولالكا انت نفتا دا يرجل السوا انت أدقو آتاي دادكو انت بدانو حي اسكو قلدان ما أي علايس كساران in uu jirkooda qurux badnaado ama ay soo iibsadaan alaabo qurux badan TV qurux badan computer qurux badan dhar qurux badan gaari qurux badan waxyaabahaasi waa waxyaabaha inagu aynu leenahay marka waxa inagu aynu leenahay ama aynu haysano inaynu ka jeclaano nafteena maaha marka waa inaan inagu horta is jeclaano markaasaan wax badan samayn karnaa way mishiinka nolosha sameeya waa adiga mishiinka lacagta sameeya waa adiga marka mishiinka wax kasta sameeya waa adiga marka hore naftaada maalgeli khaasatan madaxaaga inta muruqaagu leeyahay iyo inta aad leegtahay maxaa la yiraahdaa yani ama aad buurantahay ama aad xoog weyntahay ama laftaadu leegtahay maaha waxa aad qaban karto laakiin waxaad qaban kartaa waxa weeyaan inta madaxaagu fogaanshiyo ahaan iyo positive ahaan iyo qurux ahaan uu fikirayo oo wax arkayo inaad wax ka arki karso tahay qof indheer garada taasoo markaa aad tahay qof wax badan xallin kara wax badan qaban kara wax badanna bedeli kara laakiin naw inta badan waxaynu ka jecel nahay inaynu soo iibsano abar qurux badan telefono qurux badan maxaa la yiraahdaa yani waxyaabaha materialka inaynu inagu gadano aynu culays ka saarno ahmiyadda waxyaabahaasna ahmiyadda maaha ahmiyadda waa adiga waynu ognahay laakiin haddana ma samayno ma garan karo waayo waxaa laga yaabaa qofku inuu maanta soo shaqeeyo $20 oo kale oo aad baxday gurigaad ka baxday $20 markaad baxday yani aad soo shaqaysad gurigii timid waqtaad soo bixisay wax wanaagsan lacag baad keentay qofku wuxuu haddii uu qofku intuu qabaysto uu dhar gashto uu suuqa tago $20 buu haystaa oo uu $50 soo liqa ka warama oo wax adag kow waa khasraan waqti uu bixiyey lacag baa ka baxday maxaa la minusna uu soo galay marka inay kala bataan maaha waxa ku soo gelay iyo waxaad bixinaysaa wax kasta waad u baahan tahay nolosha waa wax kasta dukaanka haddaad tagto cuntada iibinaya wax kasta ayaa saliidii baa taalaad u baahan tahay karoodkii baa yaalaad u baahan yani wax kasta ood u baahan tahay yaala marka maaha waxaan dhan waa wada baahanay inaad dukaanka gasho tirada okay maxaa iga dhamaaday shaamboogi habada shaamboo kale ma wax kala adeegta ma nolosha hadii qaabkaas aad adigu aad samayso wax kasta aad saarto ahmiyadda koobaad waad soconaysaa waanad guulaysanaysaa laakiin inta badan maaha inaad adigu aad isku noqoto qof nolosha isku diidan ama guusha iska hortaagan adigoo moodayn inaad guusha adigu iska hortaagantahay laakiin nolosha guusheeda adigu iska hortaagan tahay waxaa laga yaabaa inaad filmaan ka daawato wax dan ay kugu jiraan aan jirin habeenkii xilli dambe iska soo jeedo wax maala yacniya maxaa waa marxalad la maro haddaad ahaan jirtay dhibaato ma laha anaa ahaan jiray dad kale ahaan jiray qaar kale ahaan jiray laakiin dhibaato ma laha waa la bedelay bedeli karta adigu maanta waxaa laga yaabaa dadka aad ku xidhan tahay saaxiibadaada oo sida qaldan u fikiraya ka fogow bedel raadso saaxiibo si nadiifa u fikiraya waqti badan wax gelinaya waxa ay gelinaya waqtigana ka midha keenaya oy ka go-an tahay saaxiibo go-aan leh saaxiibo laakiin lama baahna ma taqaana waan rabaa ma rabo taas adna waad ku dhimanaysaa iyaguna heer ma gaarayaan adiguna heer ma gaaraysa wanaad iyagana isaga fogaataa laba adiguna aad la timaada rabitaan dhaba nolosha hadaad rabtaan aad wax bedasho ka warta waxaa muhiim ah in aad tiraahdo okay sanadkaa maanta ah iska hilow sanadadii hore 10kii sano ay dhaafay 20kii sano ay hore ay dhaafay laakiin maanta waxaan rabaa in aan xaqiijiyo sidee
loo samayn karayaa orod intaa in lag musaafo intaasa yani 100 kilomitr 50 kilomitr see u ordi karaa tartiib 1 kilomitr isku day 500 mitr isku day kadib 2 kilomitr samee waata weyn waxaan ku xaqiijiyo waxaan isku dayanaa ku xaqiijiyo ama ku samayn karayaa naftada kala dhacaysa muddo 1 sano ah ama muddo ugu yaraan 6 bilood ugu badnaana 1 sano waxaad samayn kartaa laakiin waa shaqo 200% aad gelisaa waxa inta aad waqti geliso aybaad waxaad samayn kartaa awooddeedana u yeelan kartaa laakiin inta badan waxaanu jecelnahay inaynu dhibta aynu arkin ama dhib inagu dhicin laakiin aynu guusha helno waxay ku oranayaan igada dhibka ma raba dheefkaan rabaa hadda waxaan lagu dhibaatan see loogu dheefsanaya markaa taasaa baa adag soma ilahayna noo sheegaya subxana wa tacala ina maca alcusrin yusra xanuun badan markaad aragtaad fudeedku imanaya barwaaqada la gelaya laakiin wayna damarka hore kuleyl ka horeeya ilaa haddii kale waxay tahdaa soomaalida geedka orod loogu kor orod baa loogu soo tagay haddii waxaan iska kaa soo gasho ciyaar baad noonaysa dadna waad iska bixino marka waxaynaanad iska bixin ood ku ciyaarin oo dheeldheel aanay noqon waanaad aragtaa xanuun kugu soo gashaa si markaad bixinayso meeshaad ku bixinayso iyo waxaad u bixinayso iyo sababtaad u bixinayso iyo halaad ku bixinayso aad garan kartaa waa sababtaas markaa sababta aynu u baahannahay xanuunka badan aan rabo inta badanna dadkeena markay wax sameeyaan wixii sida ay rabeen u noqon waayaan naftooda canaanta naftooda canaan uma baahna naftooda waxay baahantay dhiirigelin dhib ma laha wadadan waxaad ogaatay waddo kale oo aan lagu samayn karin waxaad aad u baahnayd la sameeyo bedel si kale u samee marka more aad qalad samayso waa more aad experience helaysa markasta ood wax qaldo waa markasta aad aqoontaadu sii kordhayso iyo waayo-aragnimadaadu qofku weyn haddana aqoon badan lahayn baa layidhi waayo-aragnimo badan buu haystaa waayo goobo badan oo lasoo jeego buu soo jeeqi laweyn ma la odhan jiri yani goobo badan oo wax kasoo dhiceen buu goobjoog usoo ahaa annagaa soo marnay iska daaya ha ku dhicina iska ilaaliya waayo marxalado badan wuxuu goobjoog usoo ahaa uu arkayay intan wadda ee lasoo maray lasoo sameeyo kale waad samayn kartaa adiguna markaa waa inaad markaa u aragtaa waxaanaad samaysa inay qalad tahay aad u aragtaa cashar kuusoo kordhood baratay cishadii dhalataba casharada adduunyada culayskeeda aadmiga cidun bay cuslaysaa yani maalintu waa casharkaas waa waxbaa laga baranaya cishadii dhalataba casharada adduunyada culayskeeda aadmiga qofun bay cuslaysaa ama qoom maanta dee qof baa le waan khasaaray muu khasaarina waxbuu bartay ama dad baa oranaya waanu khasaarnay may khasaarina waxbaa kusoo kordho waxbay barteen waxbay arkeen halada gaajadu waxa weeyaan waa training waa tababar adkaysi kuf kac hore u soco aad soo okay maxay sidaas ugu dhacday haddii sidaas ku habbooneyd sababtu maxay ahayd waxba kaaga soo baxaya cashara kaaga soo baxaya ad ku qorato ayadoo aad ku wax qaadato ood wax ku fahmi karaysaa meesha kaaga soo baxaya marka naftaada waxay baahantay inaad tiraahdo okay hadduu sameeyey hebel anna waan samayn karaa haddii hebla ay samaysay anna waan samayn karaa laakiin saaxiibadaada negativeka iyo saaxiibkaaga negativeka ama sida qaldo wax u arkaya waa inaad isaga tagtaa mid kalena waa inaad ogaataa wax kasta ood adigu rabto eed u baahan tahay madaxaaga ku haysaa adigay ku sugayaan marka adiguna ayaad sugaysaa waad maxaa loo sheegay nin lagu seexdo waa seexanta weyaan guusha meel bay kuu taagantahay waxay ku tiri waxaan joogaa gurigaa dabadiisa okay gurigaana waxaa maraya bad ama webi ama waa buuro wixii aad soo raacaysaa adigay ku taala ama soo lugee ama soo duul ama diyaarad soo raac ama gaari soo kaxayso aday ku taala waxba kama gelin guushaada dhibaatadu adiga ku haysta laakiin waxay ku tiri halkaasaan jooga igu kaala markaa kuma xidna inaad muslim tahay iyo inaanad ahayn qof kasta oo halkaa ugu taga guushi uu la kulmaya marka adiga intay kugu qaadanaysaa bil 2 bilood 3 bilood 4 bilood 5 bilood ma garan karno waa marba inta dadaal aad bixiso طبعا waxaan lagu qorin ma helaysid waxaan lagu qorin ma helaysid ama waxaan lagu qorin ma qaadanaysid macnaheedu maaha seexo haddii aan maanta lagu qorin dibra lagu qoray seexo lagu qoran adiga laakiin samee ku celi waad guulaysanaysaa waxa kaliya aad u baahantahay waxay tahay inaad naftaada aaminto waxa lagu sheegaya shucaaca koneesha lagaga afuufaya inaad marnaba maqlin way dadka kugu wareegsanay 90% mar raba inaad talaabo hore aad qaadid waxay doonayaan halkaa aad joogto
lagugu bartay inaad taagnaato. shaarkaaga inuu isbedelo lama rabo, dharkaaga inuu isbedelo lama rabo, muuqaalkaaga inuu isbedelo lama rabo, fikirkaaga inuu isbedelo lama rabo, aragtidaada inay isbedesho lama rabo. halkaasaa la rabaa inay nolosha kugu dhamaato. waa sababta maanta 20 jirkeenna iyo 60 jirkeennu aynu hal fikri keliya aaminsannahay. marka adugu inaad ka dhex baxdaa. kuwa baxayna maxaan nahaa shaqadag buu qabtay u guulaystay. kuwa maanta lugaha ku qabsanaya isku dayay in islaanka kaa soo ridaan guusha aad rabta inaad gaadho, beritoolaya gacmahooda kugu sacbinaya. taana adaa sababsan karaya. waxaad u baahantay markaa keliya adigu inaad fikirkii fiicnaa eed ku fikirtay aad ficil raaciso. waxaan ficil raacina runtii ma suurtagelayaan. waxay noqonaysaa dadaalkaagii juhdigaaga wuxuu noqonayaa hal bacaad lagu lisay. si markaa aad guusha u gaadho waxaad u baahan tahay 1 inaad qorato, 2 ka baxdo ka fogaato saaxiibada negatifeka, 3 raadsato dadka guusha iyo wadooyinka sidaas quruxda badan ee madaxaaga fikirkaaga ku jira aad rabto, dadka ka gungaadhay u socda gaadhaya haminaya, dadka hamigaa leh fikirkaa leh aad ka wada sheekaysanaysaa. way maalin kasta inaad madaxaaga ku samaysaa update ku samaysaa, madaxaaga ku celcelisaa. taasaad ku guulaysan karaysaa. taasaad uga bixi karaysaa. dadkana uga saari karaysaa faqriga, gaajada iyo mushkiladahan tirada badan lagu jiray. laakiin marka hore naftaada ka xore. naftaada adigu marka hore ka xore. ku fikir inaad gurigaaga adigoo jooga dhaqaalaad samaysan karto. ku fikir gurigaaga inaad adigoo jooga dad shaqo abuur u samayn karto. ku fikir adigu inaad samayn karto adduunyadan bedeli karto. ku fikir waanaad samayn kartaa. nasiibkaynu aaminsannahay inta badan. nasiibku sidaynu aaminsannahay iyo siduu yahay waa laba waxoo kala duwan. masalan qof baa ku yimid saaxiibkaaya wuxuu ku yidhi halkanay shaqa ka jirtaa, shaqadii waxaa layna qaadanayaa ama laynooga baahan yahay 20 daqiiqo ka bacdi, 20 minute kadib. okay 20 minute kadib markuu ku yidhahdo laynoo baahan yahay uu ku yidhahdo 20 daqiiqan ku sugaya soo bax qofkii, haddii soo bixistaada ay kugu qaadato 25 daqiiqo oo saaxiibka ama saaxiibada kaa tagta ama walaalka ama walaashaha, hadda nasiibkaaga adigaa dilay. nasiibku wuu inoo yimaadaa. muuqaalkan kusoo gaadhaya ama muuqaalada kale kusoo gaadhay kusoo maray madaxaaga raad ku keenaya, wallaahi hadda ka horba war saasoo kale aan maqlay, macna kuma samaynayso. haddaad haystaa fursadda ka faa'iidayso. fursadda haddaad haystaa ka faa'iidayso. soomaalida hataa war la helaa, tala la helaa. waddadaas guushaas si loo mari lahaa, halkii la mari lahaa, nolosha anigu in baan hayaa, adiguna in baad haysaa. intaad marka adigu haysaa haynteeda keliya macna kuma samaynayso. intaada iyo inteeda marka la isku daro ayaa waxaa kasoo baxaya wax shiilan oo hufan oo caalami oo qurux badan oo cid kastaba anfici doonta, soomaali ahaan, shaksi ahaan, guud ahaan iyo gaar ahaanba. taasaan ku meel marnaa, ku guulaysanaynaa, kagana mataqaanaa gun gaaraynaa hadafkii iyo ujeedka nolosha quruxda badan leh aynu u baahannahay. haddaba su-aasha waa lacag la-aan. maxaad adigu rabtaa, maxaan anigu rabaa, aynu isku darsanno, taasaynu ku guulaysanaynaa. adoo gurigaaga jooga samayso shaqo gaar ku ah adoo bulshadaada caawinaya. sidee waad samayn kartaa? in baan hayaa, adna in baad haysaa, aynu isku darsanno. isku day madaxaaga inaad ka xoroobi karto. xornimadu waa halkan. madaxaaga marka hore ha xidhanin, ama qof kale madaxaaga yaanu xidhin. isku day madaxaaga inaad furato adigu, because nolosha adigaa iskale. sababa qof kale madaxaaga u xidhaa meesha ma taalo. waa la yidhi, waa la sheegayay, waxaanay sheegayan waxba kama jiraan, waa been, qaar badan baa hortood sameeyey, waa la arki jiray, waxaasi waa waxa qofka bini-aadanka ragaadinaya ee qeyrkeena iyo nolosheenaba inaga reebay. hay-adhe ku ixtiraam fikirkiisa iyo caqligiisa, hore u soco. laakiin hore socodku maaha in buura la jijibinaya, laakiin waa tallaabo hore loo qaado. maxaad haysaa, anna maxaan hayaa, aynu isku darno. taasay galada iyo gobnimadii ku jirtaa. waynu guulaysanaa, guulo aan weheshano. adiguna is-aamin. wax kastoo lagu wada sheega wada sax maaha, wax kastoo lagu wada sheega wada qalad maaha. qasabna ma aha qofka nolosha fog arkaya iyo quruxdii barwaaqada inaad sida u arkay isagu arkay inaad adigu u aragto. wax kastoo qof kasta arkaya inaad sidiisa u aragtaa qasab maaha. laakiin noloshaadi naftaada waxaad u baahantay inaad hormariso. sidaad ku hormarin kartaa? inaan iskaashano. anu waxaan hayaa fursado badan baan hayaa, adna kule fursado badan baan haysaa. ay soo xidhno. taasay muhiimadda ay ku jirtaa. ibada bad islaamiya su-aashuna waa lacag la-aan. ibada bad islaamiya waad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.